maxaad ka ogtahay dugsiga 10kii sano ee ugu dambeeyay Soomaaliland ku jiray kaalmaha ugu horeeya isla markaana hogaaminaya guud ahaanba gobolka Awdal iyo taariikhdiisa dugsiga Sheekh Xuseen Mugane oo haddaba noqday dugsigaasi ayaa waxaan u qalab qaadanay si aan wax uga ogaano taariikhdiisa iyo waliba sidoo kale waxyaabaha sababay inuu mar kasta noqdo dugsiga guud ahaanba hogaamiya gobolka Awdal imtixaamaadka shahaadiga ee Soomaaliland waxaan booqanay xarunta dugsiga Sheekh Xuseen Mugane ee degmada Dila waxaana halkaas guud ahaanba nooga warbixiyay isla markaana ka sheekeeyay taariikhda iyo waliba sidoo kale marxaladii kala duwan oo soo maray dugsigaasi maamulaha dugsiga qaar kamid ah macallimiinta dugsigaasi ardaydii hore wax uga bartay dugsigan iyo waliba sidoo kale qaar kamid ah waalidiinta ay ardadoodu ka aflixeen haddaba dugsiga Sheekh Xuseen Mugane ayaa noqday dugsigii ugu hadalhaynta badnaa 10kii sano ee ugu dambeeyay imtixaamka shahaadiga isla markaana ku soo noqonaya guud ahaanba hormuudka gobolka Awdal haddaba goorma ayaa la aasaasay dugsiga Sheekh Xuseen Mugane maxaa sababay taariikhaha iyo waliba sidoo kale guulaha uu gaaray 10kii sano ee ugu dambeeyay waa waxaanu ku ogaani doonaa barnaamijkeenani ee kaalin la daawo magacaygu waa Muxudiin Cabdi Cali maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Xuseen Mugane degmada Dila haddii aan wax yar guud maro taariikhda dugsiga runtii dugsigan waa dugsi markaa waqti maxaad aad standard u ah role modelna ah dugsiga waxa la aasaasay 2001 waxaana aasaasay jimciyad la oran jiray jimciyad Awdal Charity jimciyadaas aasaastay wuxuu hoos tagi jiray markaa dugsiyadan alaqsooyinka la dhaahdo dugsiga magaciisa waxa la oran jiray markaa alaqsa in badan markaa waqti maxaad magaca soo shaqeeyay 2007 ayay markaa waqti maxaad jimciyadu faraha ka qaaday xilligii markaa waqti maxaad jimciyada gaabku ku yimiday markaa iskuuladii waaweynaaye magaalada bay markaa waqti maxaad jimciyadu gacanta ku qabatay iskuuladii kale ee branchiyada ayay markaa sii daayeen iskuuladii la sii daayay markaa ku jiray xilliga markaa waqti maxaad community-ga markaa gacanta ku qabtay dugsiga magaca imika la dhaahday Xuseen Mugane ninka markaa waqti maxaad aabihii loogu magac daray oo nin muxsin ah oo waqti maxaad iskuul la dhaahdo gargaar gacanta ku haya oo boorma ku yaala ninkaas loo bandhigay markaa waqti maxaad mashruuca markaa dugsigii sidii kula wareegay kafaaradiisa ana kafaar qaaday markaa macallimiinta sidaas markaa magaca loogu bixiyay markaa Xuseen Mugane xilligaas markaa waqti maxaad loo bixiyay breefad buu markaa waqti maxaad iyo ahaa dugsiga ilaa xilliga 2010kii ayaa markaa dugsiga laga dhigay markaa waqti maxaad public oo wasaaradda la hoos geeyay markaa xilligaas wixii ka dambeeyay ilaa iyo markaa imika dugsigu markaa waa public qolada markaa waqti maxaad Muxtaar Xuseen Mugane reer Mugane iyagu markaa waqti maxaad kafaaladii xilliga markaa ay bixinayeen ilaa iyo imika wali way bixiyaan oo way la barbar joogaan markaa waqti maxaad dugsiga way caawiyaan wali markaa waqti maxaad public laakiin haddana caawintii markaa la barbar joogaan oo macallimiinta mushaharka ka qaata xagga wasaaradda maaha macallimiinta kale ay markaa waqti maxay iyaguna guneeyaan oo ay markaa siiyaan markaa kafaarada wuxuu ka kooban yahay markaa dugsigu laba qaybood qayb markaa waqti maxaad hoose iyo qayb markaa waqti maxaad dhexe qaybta hoose markaa waxay dhismeeygu wuxuu ku yaalaa markaa waqti maxaad magaalada gudaheega qaybta dhexe dhismeeygu markaa uu ka yar baxsan yahay markaa waqti maxaad magaalaha markaa qaybtana ciid noqotay hoose saasan markaa uga guurno qaybta kale markaa uga guurnay dugsigan sideedadkii u horeeyay wuxuu ka baxay 2010 xilliga markaa waqti maxaad score waxay markaa waqti maxaad keeneen inay markaa ka dhex muuqdaan ardada markaa ugu sareysa gobolka runtii intaa wixii ka dambeysay wuxuu soo maray markaa waqti maxaad dugsigu marxalado kala duwan oo markaa waqti maxaad xagga scoorada markaa uu soo galaya ah 10kii sano ee u dambeysay wuxuu ka muuqdaa markaa waqti maxaad gobolka iyo markaa Soomaaliland taba aad iyo aad waqti maxaad wuxuu sid mudan ardada markaa waqti maxaad dugsiga ka baxdaa xilliga markaa waqti maxaad sideedadka ah oo meelaha markaa waqti maxaad laga qiimeeyo markaa waqti maxaad iskuulka wax soo saarkiisa iyo murihiisa dhammaan iskoolka markaa ay ku baasaan ardadu 500 bay ka sareeyaan markaa waxyaabaha markaa waqti maxaad la yaabka badan leh cajabta ah waxa kamid ah imika sanadka 2014 tobanka arday ee ugu sareeyay gobolka Awdal dugsiga Xuseen Mugane ahaa waxayna ka sareeyeen markaa waqti maxaad ardaydaasi 600 ay gabi ahaanba markaa waqti maxaad ka sareeyeen 10 kan ma aha ardayda iskoolka u fariistay oo dhan ayaa markaa 600 ka sareysay
sanadada markaa waqti maxaad kale sanadka markaa ku xiga 2015 2016 lix arday baa markaa waqti maxaad aan ku lahayn tobanka u sareeya gobolka Awdal 2016 2017 saddex arday baan ku lahayn 2017 2018 waxaan ku lahayn markaa waqti maxaad shan arday 2018 2019 waxaan ku lahayn 8 arday laba arday baa markaa waqti maxaad sanadkaasi na wehelinayay markaa xilliyadaasi wuxuu ahaa xilligii markaa waqti maxaad qiimeynta ay markaa xafiiska imtixaanku adeegsanayay ardayda markaa waqti maxaad dhibcaha ugu sareysa hadda laakiin waxa la soo saaraa celceliska iskuulka marka iskuul baa la qiimeeyaa markaa imiko tirada ardayda markaa waqti maxaad markaa iskeelka markaa waqti maxaad gaadhay baa markaa lagu qiimeeyaa markaa intaa wixii ka dambeysay iskuulku wuxuu ku jiraa markaa waqti maxaad tobanka ugu sareysa Somaliland sanad dugsiyeedkii markaa imika aynu soo dhaafay 2022 Somaliland iskuulkiisa ugu sarreeyay ardayda markaa waqti maxaad imtixaanka u fadhiisatay dhibcihi ay keeneen markii la celcelis lagu sameeyay iskoolkii wuxuu noqday markaa waqti maxaad wanka u galay Somaliland oo dhan waana markaa waqti arrin aad iyo aad muhiim u ah oo farxad leh waxa kale oo markaa waqti maxaad xusid mudan sanadkan imika markaa waqti maxaad ardayda markaa imika baxday waxay ahaayeen 31 arday 31 arday markaa dhamaantood waxay ka sarreeyeen markaa waqti maxaad 500 waxa markaa waqti maxaad ay ka galeen Somaliland kaalinta toddobaad bay markaa Somaliland ka galeen ardaydaas iyo ardaydii ka horeysay oo dhanba waanu hambalyeynaya haddaba waxaan la kulanay kana qaar ka mid ah ardaydii ka aflaxay sanadkan isla markaana guusha u soo hooyay dugsiga Sheekh Xuseen Miigane iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah ardayda sanadkan ku jira waxayna yiraahdeen anigoo ah Mihidiin Cabsaan Nur oo ka mid ah ardaydii imika soo gudubtay iskuulka Xuseen Miigane ee kaalmaha hore fiican ka gashay imtixaanaadkii Somaliland tobankii horena ku jiray macallimiinta dhigtaa waxa weeyaan macallimiin waxaan ay dhigayaan khibrad u leh oo dadaal hadii la yiraahdo waxa dadaal inoo reebin ma jirto sidii ay noogu dhigi lahayn haddana guul oo gaarsiin lahayn ay ka fikireen casarkii haddana markaan soo tukadaa inoo imanayeen inoo dhigayeen haddana ka bax maqribkii haddana inoo dhigayeen mar walba waxayna la garab taagnaayeen dadaal iyo juhdi haddana dugsiga waxbarashadii tayada aan ka hadlo waa dugsi sanad kasta ka soo muuqda top 10 Somaliland waa dugsi waxbarashadiisa iyo macallimiinta joogta ay yihiin macallimiin aad iyo aad tayadoodu ay u sareyso aniga oo hambalyeynay dhammaan ardaydii sanadkan aan kala wada baxnay sidoo kale waxaan u hambalyeynay dugsiga Xuseen Miigane oo markasta guul iyo dadaal ka soo hooya oo ka soo muuqda top 10 Somaliland sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa macallimiinteedii dugsiga hoose iyo kuwii dugsiga saraba na garab taagnaa heerka iyo aqoontaan maanta leenahay soo gaarsiin anigoo ka soo baxay markii hore iskuulka Xuseen Miigane dugsiga hoose dhexe marka iskuulka tayadiisa markii waxbarasho aan ka soo baxay secretary markaan soo galay kuma dhibtoon oo iskuulkaasi waxa iskuul tayadiisa nagala soo dhisay haday tahay markaan dhigano tusaale ahaan subaxii aan dhigano waxaan soo noqon jirnay gelinka dambe oo kale markaa tayadiisa iskuulku maamulayaashiisa iyo macallimiintiisu iyo ardayduba way isku xidhaayeen waxbarashada waxa laga soo dhisayaa oo aad nagala soo dhisay saddex maado xisaabtii iyo ingiriiskii iyo carabigii waxaan kamid ahaa ardaydii ka soo baxday dugsiga hoose dhexe ee Xuseen Miigane Primary School kuna soo bartay tacliintan halkan la joogana kala yimaaday Xuseen Miigane ta koobaad waxaan u mahadcelinayaa macallimiintii 8 sano ay soo garab taagneed oo hiil iyo hoob ay soo garab taagneed magacaygu waa Nimco Maxamed oo Xasan waxaan dhiganaa dugsiga Sheekh Xuseen Miigane fasalka 8aad waxaan hambalyo xagga nooga dirayaa ardayda sanad dugsiyeedka ka baxday iyo kuwa sii horeeyay waxaan leeyahay hambalyo iyo macallimiinta iyo ardayda garab taagnaa waxaan leeyahay hambalyo anaguna xarreeynaa kaalinta ay galeen kaalin ka si muhiimsan waliba kaalinta koowaad baan rajeynaa insha Allah mar kale maamula Muxyidiin oo ka marxaati kacaya waxyaabaha u sababay inay gaaraan guushan iyo waliba sidoo kale inta jeer ay gaareen guushani ayaa waxa uu yiri iskamay iman markaa waqti maxaad guushani waxay ku timiday dadaalka iyo juhdiga markaa aan gelinay macallimiin ahaan iyo maamul ahaanba macallimiinta markaa iskuulka joogtaa waa macallimiin khibrad aqooneed leh tayo fiican leh dhisan karti leh dhalinyarna u badan taas ayaa keentay markaa waqti maxaad guushan inta leed waa macallimiin heegan u ah saacadii markaa waqti maxaad loo baahdo inay markaa ardayda wax geliyaan waxyaabaha aan sameeyno markaa waqti maxaad guushan inta la keenay waxa kamid ah ardayda horta base-kan ka soo dhisnaa marka hore ardayga markaa isagoo base ka dhisan oo markaa koobaadkiisii aad loo soo tarbiyay ayuu labaad imanaya labaadkiisina aad ba markaa waqti loo dhisayaa sida markaa jaranjar loo soo dhiso toddobaadkiisa marka ay yimaadaan ardayda waxaan u bilaabnaa makeup classes markaa dheeraada inaan siino ayaan u bilaabnaa markaa ardaydu markay toddobaad yimaadaan gelinka dambe wax loo dhigo
sideedaadka markay soo gaadhaanna gelinka dambe ilaa habeenkii ayaan wax u dhignaa marka gelinka dambe waxaa la raaciyaa habeenkii baa la raaciyaa marka waxaa kaloo markaa waqti maxay xusid mudan macallimiinta marka iskuulka joogtaa waxay adeegsadaan xirfado kala duwan bay adeegsadaan macallin walba markaa waqti maxay qaabka uu ardaygan markaa kor ugu qaadi karayo aqoontiisa ayay markaa waqti maxay sameeyaan macallimiinta qaar ayaa markaa waxay sameeyaan in ardayda markaa bayskooga uu yaro hooseeyo oo kale ay gooni si gooni markaa waqti wax ugu dhigaan marka waxaan sameynaa kolba waqti maxay ardayda galaaska aan isdhaahno ardaydaasi way ka yar hooseeyaan ayaa gooni markaa xiisado kabnina la siiyaa macallimiinta qaar baa markaa aad u fiican oo markaa waxay sameeyaan markaa bal si markaa ardaygani usoo kaco waqtina markaa ay isku helaan fiican gelinka dambe markay wax u dhigaan ilaa habeenkii wax u dhigaan iyo ardayda qaar la rawaxaanay xaafadahooga markaa macallinka oo kale gurigiisu geynaya ardayda qaar markaasuu halkaa jadwal markaa ugu sameynaya waqti buu la soo joogaya markaa waqti maxaade saacado ah habeenkii markaa xilligii uu seexan lahaa uu soo sii deynaya markaa intuu xaafadoodii geeyo hadhow markaa ardaygii wuxuu noqonayaa markaa arday soo kabma marka waxyaabaha markaa waqti maxaan adeegsano waxaa ka mid a markaa waqti xifradaasa ka mid a runtii taasi waxay keentay markaa waqti maxaade guusha inuu ka dhex muuqdo ardaygana inta badan waxa la og yahay ilmaha yar kulba intaad geliso unbaa ka soo baxa haddii markaa juhdi badan iyo dadaal fara badan iyo la siiyo markaa waqti maxaade taageero fara badan uu soo celinaya markaa geestooda qaar ka mid a macallimiinta wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Xuseen Miigane ee degmada Dila oo iyaguna ka warbixinaya waxyaabaha u sababay guulahan inay gaadhaan ayaa waxay tilmaameen marka hore waxaan salaamayaa oo aan halkan hambaliyo uga dirayaa ardaydii kaalinta ka soo hoysay mugaye miisaan kale imtixaanaadkii shahaadigii waxaan leeyahay ardaydaasi hambaliyo may qasaarin dadaalkii iyo juhdiga aan gelinay ardaydii kuwan ka horeeyay oo kala hore ahaa ardaydii galay kaalinta koobaad Soomaaliland oo galay taana iyagana waxaan leeyahay hambaliyadan maanta ayaan uga faa'iideynaya waxaan leeyahay hambaliyo ayaan iyagana mar leeyahay Allah ku anfaco ardayga ama cunuga yar hadba intii la geliyo ayuu buu soo daaya haddaad wax yar geliso waxa kaaga soo go'aya wuxuu noqonayaa waa wax yar haddaad wax badan gelisana waxa kaaga soo baxaya wuxuu noqonayaa wax badan waa geed la beerayo way ilmaha yar ama cunug weey hadba intii aan gelino ayuun bana ka soo gooda waxaan iyagana aad iyo aad u bogaadinayaa oo halkan iyagana hambaliyo uga dirayaa macallimiin aad iyo aad u juhdi badan had iyo jeer qabta shaqooyinka ay qabtaan yihiin shaqooyin dheeriya oo ah shaqooyinkooda caadigii la maalinlaha shaqooyinka badan ay had iyo jeer qabtaan asamayno waxa kamid ah siyaasada samayno waxa kamid ah ardayda horta gelinka hore waan u dhignaa oo waa shaqadii caadigii ee maalinlaha ahayd ee wasaaraddu geedweeyay marka gelinka dambe waxaan soo celinaa casarka waan soo celinaa salaada casar ilaa iyo maghribka waxaan sameynaa waxbaan u dhignaa waxaan siinaa xiisa dheeriyaan siinaa waxaa kaloo siinaa caawa lafteeda bacda maghribka hadana mar labaad baan dan soo celinaa laakiin maxaan aan xafidsiinaa oo nagu celcelinaa casharadii hore soo dhigteen taasi waa mid kamid ah waxyaalaha horta noo sahalay in ardaygani uu noqdo arday aad iyo aad nacam guul weyn ka keena ama juhdigii soo celiya koobay ka tahay maamulaha dugsiga oo aan ku shaqeyno nidaamka aan ku shaqeynaa uu yahay nidaamka policykiisa ama siyaasadda uu leeyahay ka dugsi ahaan isaga gaar ahaan uu sameeyay ama uu leeyahay ama maamul ahaan uu leeyahay ayaa iyada lafteedu waxay ka qayb qaadatay guulaha ayay iyadna ka qayb qaadatay oo hadba maamulku sidoo eegyahay ayuu dugsiga laftiisa u ekaadaa maamulku sidoo eegyahay ayuu macallinku u ekaadaa waxaa jirta ardayda 3 ama 4 ama 5 aduu hadba galaasku sida uu yahay ay ku xidhan tahay arday nacam intelligence ah oo aad maskax badan iskiidka ayaan la tagnaa ka bacdi waxaan u dirnaa 10 baan u dirnaa 10ka halka ilaa halkaasi iminka xafid macallinka u garab fadhiya inta anaguna ma quraan iska akhrisana ama hawlo kala han wadana ama 10 diyaarin ku jirno inta uu garab fadhiya wax uu qabanaya taasina waxay keentay in wixii intaan ku shubna kani aan ka bacdi marka dambe ala group oo kale intaan u gurubayno anu mid walba group aan u dirno oo nidhaahno qaabkii iyo sida uu qabatay wada dhici ku niyagan taasi waxay noqotay lafteedu waxyaalo aad nooga caawiyo horta bilowgooga ardayga marka uu yahay dugsi hoose uu yahay waxaan qasab kaga dhigaa ardayga inuu waxna qoro waxna akhriyo xaraf meel kasta ku yeelo ingiliisha inuu akhriyo ayaan ku qasbaa waxay noqotay dugsiga dhexe waxaan awoodda ku saarnaa ardaygani hortii hore akhris buu ahaa
waxaan ku barbaarinay sida Soomaaliga wax akhriyo ban akhriska loo barumaan isagana ka noo barin afarta sano loo soo bariyay dugsiga dhexe waxaan ku barbaarinaa inuu noqdo arday waxa loo ka soo loo diro qora hadalka barta oo boqolkiiba 90 imika ardayda aan saarnaa inta badan waa arday hadalka aad u yaqaan way qoraalka oo kale way arday ku kalsoon way qaybta naxwaha oo kale ardayga sideedaadka aan ku hayno iyo ardayga form 4 waxba isma faaninayo wallahi laakiin waa isku mid weey ardaygu hadduu ka dhismo luqadda iyo xisaabta labada hadduu ka dhismo iyo carabiga hadduu ka dhismo wax la kala ma dhibayaan saddexa markay bartaanna waxa noo fududaada waxaan u diidnaa chance ay gaab ku helaan khamiista oo kale lama dhigay iskuul waxaan sameynaa gruubyo iskuulkan keenaa ilaa intay 12 gaadhayso xafiiskan fadhiya iyagiina gruubyadii ay gruub walba markuu intii loo diray ka soo baxo uma fasaxa 12 jimciye bay noqotay gelinkii dambe salaadii casar marka laga baxo shaqadiisii caadiga maalintii oo bilaabmas haddana maxaa macallinkii waa inuu xirfad adeegsadaa xirfado gaar oo badan oo adeegsanay laakiin kuwaasi inta badan waa kuwa waaweyn ee naga caawiyay guulaha istaba jooga ah ee 10 sanadood ugu dambeeyay aynu ku jirno ama kaalinta koobaad waliba sanadka saa waxay ahayd sanadkii aan ugu hooseynay buu ahaa sanadka oo kaalinta todobaadan galnay 10 sanadood ugu dambeeyay waxaan had iyo jeer ku jirnaa wixii kaalinta koobaad ilaa 3 ilaa 2 maray inuu ardaygu wixiiba hayo wixiina wax cayiman buugi sideedaadkii uu cayiman yahay wax cayiman oo buugi lama dhaafayo toddobaadkiina waxa ka yimaada isna lama dhaafay marka buug walba isagoo haya oo dhakada ka haya uu imtixaanku yimaado waa wixii uu xafiday waxa ku imanaya waxaan rabaa inaan ka xog waramo waxayba had iyo jeer noo saamaxa ardayda in aanu si adag ama dadaal badan ku bixino dugsigan dhexe marka ay ardaydu soo galaan waxaan sameynaa basically ayaanu soo dhisnaa مثلا maadada xisaabta kale marka ay dugsiga dhexe igu yimaadaan ardaydu koow waxaan ka soo bilaabaa inay isku dhawashada kor ka hayaan ardaydu waxay kula qabsanayaan inaad wax isugu qaybin karto inaad xisaabtii furihii xisaabta marka way hayaan bay ka dhiganta waxyaaba kale isticmaalo waxa kamid ah ardayda sidoo kale xariibsan yihiin inay isugu xulo on kuraasta wada fadhiisino ardayda waxaan sameynaa had iyo jeer laba arday oo liita ayaan dhex fadhiisinaa arday pride oo fiican si ay ugu daydaan isagana waxaan kula dardaaranaa in uu ardayda waxa ku dhaamo fahansiiyo marka ay istiidaad soo gaadhaana dadaalka ugu badan baan siinaa buga manhajka loogu tala galay laba jeer baan dhamaynaa anagoo waqti badan siinana in aan fahanka waxyaaba kale sameeyno waxa kamid ah discussion badan ardayda dhexdooda ay sameeyso waxa la buga ku yaalo dhan in ay ka sameeyaan assignmento oo ay ka soo shaqeeyaan ardayga xabad ku adkaato kuwa kale garanaya caawiyaan wixii ay kari waayaan ay uga soo noqdaan hatta waxa sameeyaan gelinka dambe oo kale ardaygu hadduu xabad xisaab garan waayo kale meeshan joogo inuu igu yimaado oo yiraahdo maalintaasan maanta kari waayay ifahansi basically waxaan aaminsanahay dugsiga haddii xisaabaadka laga dhiso waa furaha keliya ee maadooyinka kalena u furaya run ahaantii had iyo jeer marka ay ilaalay ka shaqeynayaan oo kale calaa qof baan u dultagnaa ardayda marka ay ilaalay ka shaqeynayaan oo kale ardaydu waxay soo baxaan sanadka markaa uu dhamaadaa iyaga oo maadadii korka ka haya waxay waxaan sameynaa imtixaanaadkii hore la qaaday ayaan sanad kasta markaan buug saa u dhamayno waxa la wixii imtixaan hore loo qaaday ayaan u dhignaa oo uga shaqeynaa waliba jawaab ahaan maaha siday su'aashu ku timiday sida looga shaqeynayo maadaama ka doorado kale su'aal baa la soo dhigayaa waxa afartii laga dooranayna waa la soo dhigayaa su'aashu siday ku timiday iyo jawaabta sida lagu soo saarayo cashar ahaan baan ugu dhignaa marka macalinka maadada u dhigaya haddii uu maadada ardayga jeclaysiin waayo had iyo jeer waa in aad ardayga u bartaa sida ugu macquulsan ee ardaygaasi uu baran karo maadada aad si adag ula xisaabtantaa ardayga marka uu istiidadka joogo siiba iyo inta dugsiga dhexe uu yahayba waa in si adag loola xisaabtamaa ardayga waa la soo saari karaa arday brida oo wax bartay oo aqoon leh calaa qof inaad u dul tagtaana waajibka macalinka saaran yahay markaan buugga istiidadka u dhamayno aan laba jeer ku celino isagana gelinka dambe ayaan u dhignaa imtixaanadii oo dhan ku dhammaystiran ayaan u dhignaa gaar ku dhignaa marka maadadaasi ama 9 bay keenaan inta badan
ama boqolkii keenaan ama 80 wax ka sareeya keenan xisaabta marka ardaygu wuxuu ku sii xisaabtamaa waa inaan waxba dhimin imtixaanka liifanka ardayda haddii sida basic looga dhiso moral ahaan waxbarasho ahaan iyo aqoon ahaan bal la dhiso ardaygaasi marka wuxuu noqonayaa arday ku tartama in uu kaalinta koowaad ka galo imtixaanka Somaliland qaar ka mid ah waalidiinta ay ardadoodu dhigtaan dugsiga Sheekh Xuseen Miigane ee degmada Dila oo ka marqaarti kacaya guulaha iyo waliba sidoo kale dadaalka dheeriga ay ku bixiyaan macallimiinta iyo maamulka dugsiga Sheekh Xuseen Miigane ayaa waxay yiraahdeen sanadii u dambeeyay iyo sidii loo furayba dugsiga ugu sareeya xaq waxbarashada imtixaanka marka la qaado sanad dugsiyeedka ka koobaad u noqda iyo ka labaad saadarteed buu yahay iskuulkani iskuulada ugu horeeya ee ugu fiican xagga tayada waxbarashada iyo macallimiinta waxa keenay macallimiin tayo leh aniga carruurtayda qaybtii horena ka baxeen oo iga aflaxeen qaybta kale way dhigataa waa kuwan qaar ka mid ah maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee Sheekh Cumar Good oo ku yaala degmada Dila isla markaana marka ay ka soo baxaan ardaydu dugsiga hoose dhexe Sheekh Xuseen Miigane ay u soo gudbaan oo ka marqaarti kacaya tayada iyo waliba sidoo kale aqoonta ardayda ay kala yimaadaan dugsigaasi waxaan ka qirayaa ama ka cadeynaya ardayda maxay ka soo baxday iskuulka Xuseen Miigane oo ah marka arday 10 sano u dambeysayba kaalmaha ugu sareeya ka galay dugsiyada Somaliland kabacdi markii dugsiga sare Sheekh Cumar Good Secondary School maadaama waa ardayda ugu aktifsan ee ugu firfircoon ee ugu aqoonta badan leh ugu akhlaaqda badan leh Xuseen Miigane oo ah dugsiga 10 sano ugu dambeeyay ilaa maanta isagoo soo aan ka dadegin top 10ka Somaliland ee ugu horeeya ee mar walba maxaa ay ku jira kaalmaha ugu horeeya ay ku jira dugsigaasi runtii ardayda ka soo baxdana dugsiga Xuseen Miigane waxay aad ugu fiican xagga language ay aad ugu fiican ugu dambeyntii waxa halkaasi fariin ka diray maamule Muxyidiin oo maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Dila wuxuuna yiri ardayda waxa jira marka waxyaabaha imika in nagu soo batay ee social media ayaa saameynaya hadana laakiin qaabka adigu aad ula tacaasho ay marka ahaanayaan sideedka markay soo gaaraan oo kale waxyaabaha sameeyno waxa kamid ah in waalidiinta aanu kala shirno inay marka ardayda sida waliba gaar ahaan hablaha oo kale in laga khafiifiyo marka shaqada guriga si marka waqti ugu helaan marka maxay jaanis waxaan sameeynaa marka groups baa la sameeyaa ardayda inay wax u akhristaan groupka marka iyagu isma control karayaan laakiin waxa charge kareeya macallimiinta charge kareysa marka qaar kood oo kale inta badan xilliyada habeenkii ee guriga wax akhrisan ma xilliyada kale ee dharaartii groups marka ay wax ku akhrisanayaan iskuulka marka ayaan ku charge kareynaa iskuulkay fadhiyaan wax ku akhriyaan kormeer u sameynaa hal qof oo marka kormeera oo group kasta marka waqti maxaad ay ilaaliya dhaqdhaqaaqiisa la socda deetana marka waqti maxaad ay maalmo gooniya oo waxa jira marka aan ugu tala galay casharada in laga eego marka bay groups way todobaad wax ku akhriyaan todobaadka dhamaadkiisa khamiista oo kale waa laga eegaya marka wixii groups ku akhriyaan macallimiin gooniyan u sameynay oo xifdigu marka iyagu u qaabilsan marka taasaan marka waqti maxaad keentay daawadayaal warbixintan ayaa ahayd mid aanu kaga sheekeynay taariikhdii waliba sidoo kale guulaha isdaba joogga oo gaadhay dugsiga Sheekh Xuseen Miigane ee degmada Dila waa Shucayb Maxamed Kaan Shucayb Bigays iyo Siraaj Cabdi Xasan telefishinka caalamiga ee Horyaal magaalada Boorama